ay noqoto domestic violence-ga waxa la yiraahdo haddii ay noqoto early marriage-ka oo gabdhaha lagu khasbo guurka haddii ay noqoto muxuu ahaa ii sheeg dambiye aad u fara badan baa gabdhaheena lagu galaa waa hawsha u baahan ficlan inaan abaarno oo wax dhab ah tangible concrete action in laga qaato u baahan talaabo cad in laga qaato oo aan loogu naxariisanin qofkii lagu helo dambi noocaas waa taf dambiga kufsigu aad buu u badan yahay waliba xariyaha IDPs-ka aad buu uga dhacaa ama meelaha barakacayaalka laakiin inta badan impunity ku dhacda sharciga lama horgeeyo Day activism it was funded by Amazon. The role of Amazon is they fund the campaign. And IFRA Foundation was traveling around the universities, schools, high schools with the young people. This past 16-day activism, what we were doing is educating young students from universities and the schools in terms of practice on female genital mutilation, sexual violence, and youth leadership. Because Somalia today needs youth leadership. waxaynu ugu talagalnay in bulshada munaasabada ka qayb qaadanaysa lagu dareensiiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. xilka iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed FGM is not a religion practice, it's a culture practice. So we have to inform the youth that they have to go back within the society and explain FGM. It has nothing to do with religion. It's a culture practice. It's something that we can all forget and say we can save young girls to be circumcised. Abaabulka IFRA Foundation soo waday haddaan dhinac kale idiin barana dhammaan xubnaha mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ururada bulshada marka laga hadlayo FGM munaasabadahan oo kale waxay faa'iido weyn u tahay dadka ayaa wax ka ogaanay dad badan waxay xaq u leeyihiin waxa xaq loogu leeyahay dabcan xuquuqda aadanaha ilaalinteeda iyadoo Soomaaliya muslim tahay dad islaan ay yihiin dadkeeda dawladda iyo dastuurka dalku yeelan ay ku qeexan tahay laakiin haddana ma faham la'aan jirto marka koow munaasabadaha xusuuskan waxay qiimo iyo macno u leeyihiin in dadka lagu wacyigeliyo days of activity waan ka qayb qaatay waan ku faraxsanaa faa'iidooyin badan oo naf ahaan iyo arday ahaanba u yeeshay waa mid koowaad horta waxaan noqday position oo noo noqday ama meel ee Soomaali badan ama dad badan oo asxaaban isku aragno waa mid labaad ee wuxuu noo noqday meel aan isku wareysano ra'yideena ama waxyaabaha nagu jiro aan ku sheegno waa mid saddexaad waxaan ka qaadanay dhiirigelin iyo waxyaabo badan oo nagu jiray aan u baahnay in nagala jawaabaan helnay waa mid afaraad waxaan ka doodnay waxyaabaha keena iyo si lagu hortagi karo FGM-ka oo aan ololihiisa insha Allah rajaynayo inaan qayb ka noqdo oo IFRA Foundation oo barnaamijkan aad u qabanqaabinayso na soo gaarsiisay in aan qayb ka noqdo. Today, I'm very happy to be here, and then I think that I've got more information about the disadvantage of FGM and the boards of human rights watch, and even GBV is very serious. It's not good for human, and it's against the rights of women. And the people they have to protect to doing that, and that is what I'm going to say.